wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya inuu dagaal culus ka socdo gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya. wararka halkaa ka imanaya waxa ay sheegayaan in dagaalkii ka qarxay gobolka Tigray bishii November ee sanadkii hore uu ku sii fidayo gobollo ka tirsan deegaanka Amxaarada. ciidamada federaalka iyo sidoo kale ciidamada gobolka Amxaarada ayaa ku lug lahaa la dagaalanka fallaagada Tigrayga ee TPLF, sida uu warbaahinta u sheegay sargaal ka soo jeeda deegaanka Amxaarada. wararka ku saabsan dagaalada sii xoogaysanaya ayaa isa soo taraya iyadoo dowladda Itoobiya ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca bishii hore, hase yeeshee aan loo joojin. dhammaan dhinacyada ayaa midka kale ku eedeeyay inuu sii horinayo colaadaha gobolka Tigray. xiisadda ayaa sii xoogaysatay tan iyo markii xoogaga TPLF ay dib u qabsadeen inta badan deegaanada ka tirsan gobolka Tigray kadib duulaankii dowladda Itoobiya ay ku qaaday bishii Juun ee sanadkii hore. ismaamulada ka jira dalka Itoobiya ayaa wada abaabul ay ku doonayaan inay ku biiraan dagaalka, waxaana isku soo baxyo lagu qabtay dalka oo dhan si dadka loogu dhiirigeliyay in ay isqoraan oo ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah TPLF. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee loo yaqaano WFP ayaa ka digaya in uu gabaabsi noqon doono gargaarka cunto ee loogu talagalay in ka badan 400,000 oo qof oo ku nool xaalad macaluul ah oo ku nool gobolka Tigray. dhammaan wadooyinka soo gala gobolka Tigray ee ka yimaada gobolka Amxaarada oo dhaca galbeedka dalka Itoobiya ayaa go'an, sida ay sheegtay hay'adda WFP. wadada kaliya ee ka timaada gobolka Canfarta oo xuduud la leh gobolka Tigray ayaan la geli karin kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay weerar lagu qaaday kolonyo gawaadhi ah oo ay leedahay hay'adda WFP. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo xulafadoodii ay cagta mariyeen xogaga mucaaradka ah dagaaladii dhacay toddobaadkii la soo dhaafay, hase yeeshee ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijisa warkaasi. qaar ka tirsan gawaadhida sida mucaawanooyinka ee WFP oo ku sugan gobolka Canfarta ayaa u dhaqaaqay dhanka gobolka Tigray xilli qaramada midoobay ay ku baaqday in la soo celiyo adeegyadii asaasiga ahaa sida korontada iyo wixii la midka ah. jabhadda Tigrayga ayaa loogu baaqay heshiis xabad joojin ah, balse waxay ku xidheen shuruudo ay ka mid yihiin in gebi ahaanba laga saaro gobolka ciidamada Eritrea oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Itoobiya tan iyo bishii November ee sanadkii 2020. TPLF waxay ahayd xisbigii xukumayay gobolka Tigray halkaas oo ciidamada federaalku ka saareen bishii November, waxayna dowladda Itoobiya u aqoonsatay urur argagixiso, balse jabhaddu waxay sheegeen inay yihiin dowlad goboleedka sharciga ah ee Tigray. waxay isku khilaafeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isbeddelkii siyaasadeed, inkasta oo qabsashadii TPLF ee xarumihii militariga federaalka ee Tigray ay horseed u ahayd duulaankii ay militariga Itoobiya ku qaadeen ururka TPLF. ra'iisul wasaaraha oo waqtigaasi baarlamaanka soo hor fadhiistay ayaa sheegay inay jabhadda TPLF isku dirtay Soomaalida iyo Canfarta iyo weliba Oromada iyo shucuubta kale ee dalka Itoobiya, taasina ay ogaadeen sirdoonka Itoobiya iyadoo gebi ahaanba ay istaageen shaqaaqooyinkii u dhexeeyay maamulada Oromada, Soomaalida iyo weliba Canfarta kadib markii ay militariga Itoobiya qabsadeen gobolka Tigray, hase yeeshee ay hadda dib uga bilowdeen Canfarta iyo Soomaalida dhexdeeda. ra'iisul wasaaraha ayaa waqtigii uu baarlamaanka ka hor khudbadeynayay sheegay inay ciidamada Tigraygu soo kala dhexgelayaan maamulada iyagoo midka kale iskaga dhigaya inay yihiin cadowgooda, sidaasina ay rabshado uga dhex bilaamayeen shucuubta kale ee Itoobiya. waxaanu sheegay in ay ujeedka ugu weyn ee ay TPLF ka leedahay ay tahay inay dalka qalalaasa geliyaan. ilaa 5,000 oo qaxoonti Itoobiyaan ayaa la filayaa in ay maalmaha soo socda ka gudbaan xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya, sida uu sargaal ka tirsan dowladda Suudaan u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. tani ayaa ah muujadii ugu dambeysay ee dadka isaga cararaya colaadaha ka socda gobolada Tigray iyo Amxaara ee dalka Itoobiya, kuwaasi oo ka sii daray toddobaadyadii tegay. horaantii toddobaadkan waxaa xadka ka gudbay ilaa 3,000 oo qof oo qaxoonti Itoobiyaan ah, taasi oo tirada qaxoontiga Itoobiyaanka ah ee ku sugan Suudaan ka dhigaysa ku dhowaad 60,000 oo qof. sargaalkan u hadlay dowladda Suudaan ayaa sheegay in roobab mihigaan ah oo ka da'ayay xuduudka ay sababeen in webiga mara xadka kala qaybiya labada dal uu fataho, halkaasina ay 3 qof oo Itoobiyaan ah oo isku dayayay in ay xadka ka gudbaan ay ku qarqoomeen.
Dagaalka ka socda gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyada oo 400,000 oo qofna ay ku barakaceen. Dalka Sri Lankana rag ceel qodayay ayaa si lama filaan ah u helay dhagax jooga $100 milyan. Mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa sheegay in dalkooda laga helay dhagax qiimo ahaan jooga $100 milyan. Dhagaxa ayaa la sheegay in ay heleen shaqaale qodayay ceel ku yaala meel aan ka fogeyn gurigooda oo ka tirsan deegaanka Ratnapura. Khabarada ayaa sheegay in dhagaxan oo midabkiisu yahay buluug lagu qiyaasay in qiimo ahaan uu caalamka ka joogo $100 milyan. Dhagaxani oo culayskiisu yahay 510 garaam ayaa lagu magacaabaa sapphire. Ninkii qodayay ceelka ayaa nagu wargeliyay dhagaxan oo ka duwan dhagaxaanta kale. Mar dambe ayaan ogaanay in uu yahay dhagax qaali ah, ayuu warbaahinta u sheegay Gemej oo ah mulkiilaha dhagaxan. Ninkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego magaciisa oo dhammaystiran iyo goobta uu ku sugan yahay sababo dhanka ammaanka ah awgood. Gemej oo ah dadka macdanta qoda ayaa mas-uuliyiinta ku wargeliyay dhagaxa uu helay, balse muddo sanad ka badan ayay qaadatay in dhagaxan laga nadiifiyo dhoobadii iyo carradii dul saarnayd si loo baadho loona xaqiijiyo. Intii uu socday hanaanka nadiifinta dhagaxani ayaa Gemej waxa uu sheegay in qaar dhagaxaanta ka mid ay noqdeen nooca qaaliga ah ee sapphire-ka loo yaqaano. Ratnapura oo macnaheedu yahay magaalada dahabka ah ee luuqadda Sinhalese waxaa loo yaqaanaa caasimadda macdanta ee dalkaasi ku yaala Koonfur Aasiya, iyadoo hore looga helay dhagaxyo kale oo qaali ah. Haddana Sri Lanka ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee dhoofiya dhagxaanta kala duwan ee qaaliga ah. Sanadkii hore wuxuu dalkaasi $5 bilyan ka helay iibinta dhagxaanta qaaliga ah iyo dheemanta. Weligii ma arag dhagax sidaas u weyn hadda ka hor. Waxa uu dhagaxani samaysmay 400 milyan oo sano ka hor, ayuu yidhi Dr. Gemini Soisa oo cilmiga geology-ga ku takhasusay. Baadhitaanka ayaa imaanaya iyada oo waaxda macdan qodista ee Sri Lanka uu soo food saaray khasaare ba'an oo ka dhashay dhibaatada cudurka safmarka ah ee COVID-19.